ودمدي deeqaha bixin jiray waxa laga yaabaa maanta wadan waliba in mashaakilaaadkiisa ay ka bateen in la mataaneeyo ballanqaadkii xisbiga wadani madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadyadii iyo qorshihii uu tala galay marka uu ku guuleysto xukuumadda inuu fuliyo taasoo aan u bedelay qorshe qaran waxaan doonayaa aan idila wadaago progress-ka halkaynu marayno labada sano iyo barkay tagay maxaynu fulinay sector-iska kala duwan maxageebay marayaan maanta kulankan ballaadhan ee aynu isugu nimid ujeedada koowaad ee uu daaran yahay waxa weeye inaynu daahfurno mudnaanaha qorshaha qaranka ee 2025 ilaa 2027 ku shaqeyn doono waxa sidoo kale wasaaradda qorsheynta oo kaashanaysa xubnaha kala duwan iyo wasaaradaha hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaanu soo bandhigi doonaa qiimeyn natiijada ka soo baxday qiimeyn aynu ku sameynay qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad ee 2023 mudnaanihii noo qorshaysnaa wixii nooga qabsoomay taariikhan intii ka dambeysay muddadii Soomaaliland la soo noqotay madaxbannaanideeda waxaynu yeelanay ama samaysanay 4 qorshe horumarineed qorshihii horumarinta ee ugu horeeyay oo aynu dejinay 2007 waxa uu socday ilaa 2010 qorshahaasi waxa la oran jiray reconstruction and development plan waxaynu ku jirnay marxalad aynu ka soo baxnay humanitarian ama marxalad bini'aadantinimo oo qaranka diiradda uu saarayay in ay dadku helaan adeegyada aasaasiga ee bulshada sida biyaha caafimaadka hoy iyo waxbarasho qodobka labaadna waxa weeye labada sano iyo barka haray maxaynu prioritize gareynaynaa ama aynu mudnaan siinaynaa marka la joogo qorshaha horumarinta qaranka runtii hawshani waxay lahayd hawl baaxadeeda leh oo wasaaradda qorsheynta ay ka shaqeynaysay 4 bilood ee u dambeeyay isla markaana juhdi badan la geliyay oo team khubaraahi ay aad uga shaqeeyeen waxaan doonayaa aan idila wadaago progress-ka halkaynu marayno labada sano iyo barkay tagay maxaynu fulinay sector-iska kala duwan maxageebay marayaan iyagoo dhammaantood ay ku qoran yihiin booklets laakiin haddana bal snapshot yar oo ku saabsan maxaynu achieve gareynay labadii sano iyo barkii hore horta guud ahaan markaynu ka dhigno percentage 650 wixii qorshaysnaa labadii sano iyo barkii hore ayaynu achieve gareynay taasoo ka dhigan marka loo dhigo qorshayaashii horumarinta qaranka koowaad iyo labaad inay aad uga badan tahay waayo qorshihii horumarinta qaranka koowaad 5 sano waxa lagu qiyaasay inaynu achieve gareynay 5%. qorshihii horumarinta labaadna waxa lagu qiyaasay inaynu achieve gareynay 5 sanadood 3%. laakiin imika inagoo 2 sano iyo bar marayna ayaa labadii sano iyo barkii wixii qorshaysnaa waxaynu achieve gareynay 56%. sida aad la socotaan qorshaha horumarinta ee qaranka ee saddexaad oo la daahfuray bishii saddexaad 2023 waxaa saameeyay inuu 100% hirgalo ama uu si u dhawaadaba arrimo aan la filayn sida dib u dhaca doorashooyinkii hore xaaladaha nabadgelyo ee gobolka Sool oo ay ogeyn iyo hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka ka dhacay taasi waxay sababtay in miisaaniyadii horumarinta qayb ahaan loo bedelo dhinacyada amniga iyo hawlaha doorashooyinka waxaa intaa dheer iyaduna hoos u dhac ku yimid deeqaha caalamiga oo ay ognahay in badan hoos isku dhimeen caqabadahaasi waxayna tuseen in loo baahan yahay in markaa dib loo eego qorshihii horumarineed ee qaranka ujeedada ugu muhiimsan ee keentay markaa inaan dib eegno waxaa ka mid ahaa in mudnaanta la siiyo maxaa suuragal ah ee la qaban karaa iyo sida loo kala horreysiin karo in dib loogu qiimeeyo ilaha miisaaniyadeed ee la heli karo in la fahmo oo la waafajiyo caqabadaha jira amase lagu sii hortagi karo in la mataaneeyo ballanqaadkii xisbiga wadani madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadyadii iyo qorshihii uu tala galay marka uu ku guuleysto xukuumadda inuu fuliyo
taasoo aan u bedelay qorshe qaran. Which is an agenda is not just a policy document, but a vision of future of Somaliland aspires to build a future of stability, dignity, and opportunity for every Somalilander. waxaan idinku soo dhaweynayaa shirkan waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Mrs. Kaltuun iyo xubnaha wasaaraddeeda oo ka soo shaqeeyay NDP3 markaan xaggeeda u laabto since la bilaabay Somaliland National NDP3 development-ka hay-adahan magacooda ku hadlay waxay ahayd laf-dhabarta ka shaqeynaysa ee caawinaysa hadday tahay technically iyo hadday tahay financial labadaba. ka kulli halkan waxaan ka sheegaynaa miisaaniyaddii aynu soo diyaarinay 2026 inay ka tarjumayso qorshaha horumarinta qaranka iyo mudnaanaha qaranka oo wasaaradda aan si fiican uga wada shaqeynay ka anagu roolkan ku leenahay waxa weeyaan in qorshihii ay soo diyaariyeen istoo miisaaniyaddeenu iska koobantay oo waxyaabaha aynu qaban karnaa haddana wax fara badan baa kaga jira ka wasaaradda qorsheyntu iyada anaga nahagta oo balaankay keenaan baro anaguna ka miisaaniyad ahaan ku salaynaa oo runtii si fiican baan wada shaqeynaa ka kulli waxaan rajaynaynaa in qorshaha ay noo soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta qaranku iyo qorshaheena miisaaniyadda oo miisaaniyadda lafteedu waa qorshe in labadaasi haddii ay iswaafaqaan aynu wax badan qaban karno. qorshihii qaranka ee saddexaad halkan ku soo bandhigayso oo prioritiska waxyaabaha ay siisay ay kaga hadashayna ay dhalinyaradu mudnaanta ay siiyeen annagoo ka sanduuq horumarin dhalinyar ahaan waanu ku faraxsannahay inaan maanta kala soo qayb galno oonu halkan u joogno inaanu hawsha qayb ka nahay kana qayb qaadano. hay'adda caymiska qaranku waxay ka mid tahay hay-adaha maaliga ah ee qaranka waa hay-ad runtii hadda da-deedu 5 sano tahay aad baan uga mahad celinayaa wasaaradda qorsheynta inay runtii dareentay muhiimadda ay leedahay hay'adda caymiska qaranku. runtii farxad bay ii tahay inaan maanta wasaaradda qorsheynta kala soo qayb galo munaasabadan ay ku soo bandhigayaan qiimeyntii ay ku sameeyeen qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad oo siday sheegeen soo bilaabmay 2023 runtii haddii aan qorshe lahayn shaqo lama qabto. shaqo kasta oo la qabanayo qorshaa lagu saleeyaa qorshahaasi marka uu ku dejisan yahay ee aad xooggaagii iyo muruqaagii iyo resource-kii iyo meelihii aad ahmiyadaha saaraysa ku cad yihiin markaas baa wax la taaban karo runtii la qabtaa. mid waa mid guud oo maanta aynu wada ognahay oo dunidu siday isu bedelayso innaga inta badan qorshayaasheenna waxaynu ku dhisnaa in layna caawiyo laakiin waxaynu ognahay maanta inaanay dunidu sidaa u shaqaynaynin. duniduna waxisasiintii ay joojinayso ay sii yaraynayso. Soomaalidu waa tii odhan jirtay geed walba in gubtaa way hoos taallaa. waddamadii deeqaha bixin jiray waxaa laga yaabaa maanta waddan waliba in mashaakilaadkiisa ay ka bateen. sidoo kale dunida muddo dheer waxaa aada ugu yaraa waxyaabahan geopoliticska la xidhiidha laakiin taana waxaad moodaa maanta inay dunidu xoog ugu soo noqotay. tartanka awoodaha waxa uu deeta qasab ka dhigay waddan waliba wixii uu haystay in uu amnigiisa geliyo oo culays ka saaro. haddaad iminka u fiirsato waddamada dunida aidhka jaraya lacagta ay aidhka ka jaraan badi waxay gelinayaan defense iyo ciidankooda iyo militarigooda ay gelinayaan. marka qorshayaasheenu waa inay ku salaysnaadaan waxa inagu aynu qabsan karno oo inagu aynu samayn karno. reviewga markaa la sameynayay taasi aasaas bay u ahayd. agaasimaha guud ee wasaaradduna waa kii ka hadlayay wax realistic ah oo aynu inagu samayn karno oo ku xisaabtanka dadka kalena uu ku yar yahay in haddii la yidhaahdo aynu ka shaqeyno. marka inagu waxaan jecelahay inaynu shahaadada iyo wax kalaba isugu darro shaqaalaha aynu haddii la yidhahdo u kordhino wax kale dee mudan yihiin aynu siino waa mas-uuliyad wada saaran xukuumadda ee aan wasaaradda keliya saarnayn.
oo maalinta ayagtiiska loogu daro ayaan hadda soo jeedin lahaa intaa markaan ku dhaafo bulshadeennuna waxay u badan tahay dad nugul dad baahiyo gaara qaba dad danyara way badan tahay dhibaatooyinka bulshadu ay leedahay ka wasaarad ahaan haddii aan warbixin yaro kooban idinka siiyo howlaha iyo guulaha la taaban karaa ee muddadii lasoo dhaafay fulisay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku gaar ahaan qaybta u qaabilsan daryeelka bulshada tan iyo markii si rasmi ah loogu daray qaybta daryeelka bulshada qorshaha saddexaad ee qaranka runtii maanta waa dee maalin aada u qiimo badan oo aynu eegayno ama qiimeynayno halkii ay marayso xaaladdan aynu ku sugannahay qorshaynteennii NDP3gii aynu eegayno intii aynu soo marnay wixii qabsamay sidaa la sheegay iyo waxa priority-ga ay soo socdaysa aynu soo eegno wasaaradda waxbarashadu waxay leedahay oo u diyaarsan tahay qorshaha bahda waxbarashada ee 5 sare ayay samaysay hore u samaysay oo iminka runtii gabagabo ku dhow diyaargarowgiisii iyo qiimayntiisiina ay hadda socoto wasaaradda ka dhex socoto marka runtii saa ka muuqata sectorkan productionka wasaaradda xanaanada xoolaha hogaaminaysa 70% sarifkood ku soo baxay ee wasaaradda xanaanada xooluhu gaadhay laakiin waxaan qabaa 70%ka wadaniga priority-ga wasaaradda xanaanada xooluhu waa 2 qodob labada qodob ugu muhiimsan waxa weeyaan in la helo calafka xoolaha iyo daaweynta calafka xooluhu wuxuu u baahan yahay in la isku tashado qorsheyo weyn laga gaadho aan calafkii beerano la soo baxno xoolaheenii u kaydino xilliyada abaarta aynu kaga baxno in la soo dhoofiyaa mar walba caqabad ay leedahay qarash beerada ay leedahay laakiin inaynu isku tashano oo waxyaalaha runtii priority-ga siinayno lama arkaa laakiin caafimaadintu sanadkii u dambeeyey waxaan ka gaadhay runtii guulo la taaban karo aada u fiican waxaan qabaa 80% marka la eego intaa wasaaradda xanaanada xoolaha aanu joognay oo markii ugu horreysay ilaa 50 goobood la gaadho oo la geeyo dawooyinka xoolaha ee caafimaadinta taas waxay ka turjumaysaa markaa 70%-gaanu gaadhay 2 sano iyo markii soo socday waxaa noo qorshaysnaa inaan 3,700,000 oo neef daaweyntiisa in la gaadho anu waan dhaafnay 3,800,000 baan gaadhnay laakiin calafka xooluhu wuxuu u baahan yahay wanagaa ku jirnee aad arkayso kulliba caqabadaha inagu xeeran calafka xooluhu wuxuu lafdhabarkii ku yahay inay xoolaheenu badbaadaan oo isdhoofka xoolaha ee maanta ku tiirsannahay quality-giisa iyo tayadiisu waxay ku xidhantahay inay helaan xoolaheenu inay helaan calaf ku filan oo nafaqo leh oo sidii loogu talagalay waxaa naga go-an anaga wasaaradda xanaanada xoolaha inaan helno ambaanu dejino ambaanu qorsheyno ambaanu beerno in calafka xoolaha aynu u kaydin karno ugu yaraan 70% xoolaheenna xilliyada abaarta runtii